ciidamada haramcad oo caawa baaritaano culus ku sameynaya guryaha mucaaradka waa dawladnimo iyo sharciga waana war degdeg ah oo milga TV kala socotaan ee sheergareeya maxay tahay sababta xilligan keentay la baaro guryaha mucaaradka shaki miyaa jira maxay tahay se xogaha tilmaamaya in hub far badan mucaaradka gacanta ay ku dhigeen warbixintan milga ayaan ku eegaynaa saaxiibayaal balse marka hore sheergareeya warbixintan la wadaag qof kasta oo Soomaaliya jecel dhismaha wadankiisa hooye ee Soomaaliya sidoo kale follow iyo like saar page-keena Facebook ee Milga TV si aad ula socoto wararka warbixinada iyo xogaha xasaasiga ee la xiriira Soomaaliya si guud caalamka waa hagaag aynu ku hormarnay xogo hoose oo helay Milga TV waxa ay sheegayaan in ciidamada booliiska gaarka ah ee haramcad caawa ay bilaabayaan baaritaano guri ah oo ay ku sameynayaan guryaha mucaaradka Muqdisho ay ka degan yihiin arintan ayaa timid kadib markii ay soo kordheen walaac iyo warar sheegaya in mucaaradka caasimadan ay ka wadaan qalaasa iyo hurinta colaado ka qaraxa magaaladan sidoo kale waxay xogtu tilmaamaysaa in ciidamo mucaarad ah iyo hub far badan magaaladan ay soo galeen waxaana shaki weyn laga muujinayaa guryaha mucaaradka oo ciidamadan faraha badan ay ku xareysan yihiin ciidanka haramcad ayaana xiray jid walba iyo meel kasta oo loo maro guryaha mucaaradka ka degan yihiin si gaar ah garoonka diyaaradaha ee Muqdisho dhanka Minraayo iyo meelaha kale ee mucaaradka Muqdisho ay ka degan yihiin waa la baarayaa waa la xaqiijinayaa waxa ay heesaan iyo hubka gacanta ugu jira nidaamka dawladnimo ayaa la adkeynayaa sharciga iyo kala dambeyntan waa ay soo laabanaysaa fadlan sheergareeya oo faafiyo warbixintan xasaasiga ah ee dhabar jabka ku ah mucaaradka dawladda federaalka Soomaaliya taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Generaal Xijaar ayaa amray in ciidanka amniga gaar ahaan booliiska ka hortaga rabshadaha iyo barnaamijyaasha inay xaqiijiyaan amniga caasimadan isla markaana baaritaan rasmi ah lagu sameeyo guryaha mucaaradka si looga feejignaado dhagaraha iyo dagaal mar kale Muqdisho ay martigeliso heegan ay ku jiraan ciidamada amniga ee caasimada wada kasta iyo meel kasta oo caasimada ahna waxaad ku arkaysaa ciidamada amniga way feejigan yihiin markan mana hurdaan way ka digtoon yihiin dhagaraha cadawga wayna ugaarsanayaan qof kasta oo ka hortimaada dawladnimada Soomaaliya ma dhici doonto sidii bishii Abriil ee ka dhacday Muqdisho in ciidamada oo howlo amni ku jira Muqdisho ay soo galeen ciidamo kale oo mucaarad ah balse markan ma jiro askari mucaaradka raaci doona digniintii ugu dambeysay ayaa la siiyay qofkii mucaaradka aado askari ahna wax xuquuq kuma lahan dawladda arimahaas iyo kuwa kale ayaana waxyaabaha sidoo weyn ciidanka cadays lagu saarayo si aysan ugu milmin saameyn ugu yeelan siyaasadda Soomaaliya cabsi ay wajahayaan musharaxiinta mucaaradka qaarkood ayaa ka baqdin qaba in inta baaritaanka guryahooda lagu wado gacanta lagu dhigo xogo iyo macluumaad sir ah oo ay la wadaageen dawladda shisheeye oo ku fogan dumin dalkeena hooye ee Soomaaliya waa laga hortagayaa waa la qabanayaa cid kasta oo shay kalkaal ah oo dalkan dumintiisa diyaar u ah Milga TV ayaa daawada nagala socotaan sheergareeya muuqaalkan oo like na saara sidoo kale follow soo dhaha page-keena si aad ula socoto macluumaadka iyo xogaha xasaasiga ah ee la xiriira amniga guud ee dalkan Soomaaliya waa guul weyn waa habeen taariikhi ah oo mucaaradka la soo gabagabeyn doono geesiyaasha haramcadna heegan ay ku jiraan xilli kasta si amniga caasimadan ay u xaqiijiyaan haddaba daawade adigu maxay kula tahay sideese u aragtaa howlgalkan ballaaran ee lagu sameynayo guryaha mucaaradka fikirkaaga iyo waxa ay kula tahay daawade ku reeb qaybta commentiga tan iyo kulan dambe nabadgeliyo